بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميلا جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى ديكوان ما ييرو عدي لبنبك الله كقادو عدي دن لا الله وفي انت باهن الله ديقو انت بوكتا الله بوكسيو انت ديمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا نغل الله نوغا دبا نحريستو دالكا دينتا دادكا iyo dowladnimadaba إلهي سبحانه وتعالى هينو بدباديو maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. qodobka koowaad waxaan ka hadli doonaa kalimaad ka oran doonaa dagaalada ka socda buuraha Puntland. qodobka labaad waxaan kalmad ka oran doonaa wiil dhalinyaro ah oo labisan calanka iyo tuutaha ciidamada Puntland oo ku dhaqmay ama ku kacay fal waxashnimo ah, isagana kalmad baa ka oran doonaa. qodobka saddexaad mufti ka soo baxay TikTok oo nin dhalinyaro ah oo diin ka hadlaya, quraan daliishanaya, isagana kalmad baa ka oran doonaa. dagaalkii ka socday buuraha si laxaad loo socda. waxaan rajaynayaa insha Allah taala maalmaha soo socda inuu soo afjarmo. The time will tell. maxaa ku xigi doona? ishaan ku haya imaaraadka anigu ma aqaan ally ama walaal ama saaxiib ama qof la soo dhaweysto. imaaraadku taariikh bay leeyihiin, taariikhdooda madow oo foosha xun oo qabiixa ah oo anti muslimka ah ama muslimiinta meelay joogaan ba lidka ku ah, camiilka ah oo cadowga u shaqaysa, ujeedada xun oo ujeedo fiican aan lahayn oo aan wax la kala faa'iidi karin inay iyagu uun ku haleeyaan ay shaqadoodu tahay oo takhriibka u socda. ishaan ku haya dardarka ay ku jiraan iyo dagaalka ay ma ku xigi doontaa almadow, ma ku xigi doontaa shabaab, ma laga sifayn doonaa mise wada shaqaynta iyaga iyo shabaab haddaba u dhaxaysa baa sii socon doonta? Time will tell. Right now ciidamada Puntland shaqada ay ku jiraan ilaa madaxweynaheeda ilaa askariga ugu hooseeya absolutely 100% waa in la taageeraa. ajnabiga soo duulay ee meelo fogfog ka yimi ee u yimi inuu hantideenna boobo, macdanteenna gurto, lacagteenna daldasho, dahabkeenna rarto, inay meesha ka baxaan oo laga sifeeyo. arrintaa qof dacwo ka qabi kara iyo qof hadal ka qabi karaa ma jiro. qofkii hadal ka qabaana waa qof aan fahamsanayn Soomaaliya dhibka ay dhex fadhido iyo sida ay ugu baahan tahay wax kasta oo yar oo hiil ah oo noocay ahaataba ah ee soo gaara say ugu baahan tahay. marka arrintaa iyada ah markaan ka gudbo, ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidamada ha guuleeyo. ilaa iyo haddana guula lixaad ayay la kulmayaan. curaar meesha la yiraahdo oo duqaynta tirada badani ka dhacday oo ay ka qaxeen, waxaa la faafinayaa ninkii madaxda u ahaa nimanka in lagu dilay halkaa. ilaahay run ha ka dhigo, mujrim buu ahaa, isagaa soo hogaamiyey dadkan ajaanibta oo carabta oo ka soo duulay meelaha aad u fogfog. ujeedadooduna ay tahay dhaqaale, aan diin ahayna dhaqaale ah. buuraha waxay ugu jiraan macdan iyo dahab iyo waxa laga qotaa dhagxanta qaaliga ah. lacagaadu badanna waa laga sameeyo milyanis ah. ilaahay waxaan rajaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu dhammeeyo waxnana uusan ka reebin. qodobka markaa intaan kaga gudbo, qodobka labaad waxaan arkay nin la yaraa oo reer Puntland oo ciidamada labiskoodii qaba oo nin da'yara oo calankii Puntland gacanta ku wata, garabkana ay ugu dhegan tahay calanka Puntland, isla markaasna calankii Soomaaliya intuu dhulka dhigo ku istaagaya. wiilkaasi waa mujrim باللسان الحال والمقال ومجرم. ذنبي بو كغلاي امده Soomaaliyeed. waxa loo soo marayna ma yaqaan, aabihiisna ma barin. nin dhaqan xun oo akhlaaq xun oo aan mudnayn inuu ciidamada ku jiro way. qofka noocaas oo kala ahi waa xubin mufsid ah oo halaysan oo u baahan ummadda in laga jaro. calanka Soomaaliya calamada yar yar koo aad wadataan oo calalada aan u aqaan lamid ma aha, lana miisaan ma aha, qiimo lana qiimo ma aha. sharafta iyo karaamada uu leeyahayna
dadkii u soo dhintay baa garanaya wixii loo soo maray wiilka yarka ahi ma garanayo aabihiisna midhaa ma uusan barin hadduu doonana maba uusan aqoon ma ujeeda adeer ummadda muslimiinta ah oo soomaalida la yidhaahdo gees ilaa gees dembi baad ka gashay meelay joogaanba kuwa qurbaha ku nool kuwa ku nool 5 qaybood oo Soomaaliya 5 xidigta 5 gees leh ayaa midaysa ummadda Soomaaliyeed iskuna haysa inaad ku istaagtana waa dhaqan xumo iyo adab darro ummadana kama aadan xishoon ilaahayna kama aadan xishoon yani afis iyo waa inaad dalbataa in lagu afiyo waa inaad dalbataa raali gelin buuxdana waa inaad ka bixisaa calankaas aad ku xadgudubtayna waa inaad ka lushaa meesha ugu sareysa ee aad gaari kartid isagana kalbadaasan ka hore waa ujeedooyinka qarsoon oo cadowgu ka leeyahay geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa ummadda iyo in la kala fogeeyo qiyamkeeda ummadda iyo in la kala fogeeyo waxyaabaha muhiimka u ah in laga dilo wadaniyadda marka laga shaqeysto waana waxa hadda socdo annagu haddaan reebelnahay nama khusayso Soomaaliya waxyaabaha socdo way Somaliland iyo Puntland waxaa loo abaabulayaa meesha ay ku yaalaan baa musiibo ah Soomaaliyana meesha musiibada ku ahi waa meesha juqraafiga ay ku yaalaan Ruush iyo Mareykan Yahuud iyo Carab kulligood indhahay ku hayaan waa meel khariban waa meel cudud u baahan iyo dad aqli leh oo baraarugsan oo indhaha kala haya kelmadaas intaas ka oranaya wiilka yarka dawladdiisu shaqaha ka qabato hal laga saaro ciidanka hal xiro apology hadii kala ha bixiyo apology dhammaystiran ha bixiyo hana la ciqaabo kelmadaas intaas Zamil Twin Towers oo ka kooban 2 tower waxa uu ku yaalaa xaafadda Parkland gaar ahaan Ring Road waxa uu saaran yahay xaafadda Westland gurigan waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo qolkii shaqaalaha ee DSQ-ga musqulo jiko iyo balkoono gurigan waxa uu leeyahay adeegyadii oo dhan sida 4 lifti oo tower walba uu leeyahay CCTV camera security 24 saacadood motor elbiod parking masaajid dugsi quraan goobaha caruurta ay ku ciyaaraan farmashiye supermarket iyo dhul weyn oo loogu talagalay in dadka degan guriga ay ku lugeeyaan waxa gacanta ku haya dhismaha gurigan culimo u diin Soomaaliyeed oo horey u soo dhisay guriyo waaweyn ka faa'iideyso fursadda guriga Zamil oo la iibinayo qiimo aad u macquul ah oo ku raali gelin doona fadlan la xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaga muuqda Zamil Twin Towers qodobka saddexaad waxaan arkay nin dhalinyaro ah oo TikTok-ga muftika wuxuu dad buusaa u safay wuxuu leeyahay hebelow sokor haddaa cuntid ka waran diinta maxay ka qabtaa xaaraan weeye ma banaana waa dad uu cabsiiyey oo ka dhaadhacshay oo isagu mufti ugu yahay inay xaaraan tahay sokortu hadda waa sokortaan cunno oo shaaha ku karsanno oo cuntada iyo lagu darsado sokorta weeye wuxuu yidhi xaaraan weeye dadkaas dhan oo halkaas safan qof yiraahdo war waxa akhriyaysid waxba kama jiraan sheekh namatiida meel fariiso oo ku dhaca waa laga waay yaani waxyaabaha mimma yu'lamu min ad-din bid-darura waxyaabaha aan u baahnayn in sheekh tahay saad u ogaatid inay xalaal yihiin waxa kamid ah cuntada aan cunno every day dadka muslimiinta ah oo ku nool wadankiina oo dhan oo hooyooyinkiin ay kamid yihiin oo isaga ka yarka oo indhaha soo xanjaysanaya uu kamid yahay oo hooyadii kamid tahay aabihii kamid yahay waligood ay cunayeen sokor weey marka qof yiraahdo war sokorta iyo timirta iyo bariiska iyo baastada iyo xalaal weeye aamus waxaan garanaysid faraha la gelin cilmi kale weeyo diin la yiraahdo oo la barto oo la yaqaano culimo la yiraahdo ay ku takhasuseen cagaha ka dhig wiilka waxaan leeyahay wiilow ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hada halal wa hada haram li taftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ilaahay wuxuu dhaar ku maray wuxuu yiri horta arabkiina ha barinina idab daro been ah oo idinku iska abuurateen inaad tirahdaan waxaasi waa xalaal iyo waxaasi waa xaraan ilaahayna aad ku been abuurataan qofkii saa yeela ma liibaanayo adduun iyo aakhiro waa lagu hoojinaya haddaadan ka toobad keenin mawjada xaraan iyo xalaal ilaahay baa iska leh isaga keliya shaaric ah inagu waa raacnaa keliya qodobkaas intaa horta faham waxa kaloo fahantaa diintaanu waa science iyo arts isku jira علوم ويلا برتو وقتي iyo juhdi
iyo waxaa gala lacag iyo magaranaysaa caqli baa gala oo ku dhammaada dad baa indhahoodii ku beelaysay wax u akhriyayeen adeerow marka cagaha ka dhigo u daa culimada fas'aluu ahla dikri kuntum laa taclamuun waxaadan aqoon culimada weydii kana har hana isaga dhigin culimo dad kaa liito kooxa intaad urursatid shiikh ha u noqon waa dambaabaysaa iyagana waa luminaysaa waa dambaajinaysaa kulligood waa dambaajisay waxaad ka dhaadhicisay shay xalaala oo ilaahay xalaaleeyey inay xaaraan tahay muxuu daliishaday wiilkaasi wuxuu leeyay fa innahu rijsun weeye rijsi weeye khamrigaa laga sameeyaa xataa kimikaaliska iyo broseska ay maraan ma garanayo waryaa sokorta wiilow anaa kuu sheegaya sida loo sameeyo sokorta iyo khamriga isku shay baa laga sameeyaa sugar cane la yidhahdo ama khasab soomaaliya ay tiraahdo soomaalidu ay tiraha khasab khasabka beeraha inoo ka baxa ayaa laga sameeyaa sokorta iyo khamriga labadaba khamrigu wuxuu ka mid yahay byproductska sokorta marka laga shiito oo lagala baxo waxyaabaha soo hara waxaa ka mid a khamri waxaa ka mid a alcohol waxaa ka mid a barafuun waxaa ka mid a waxyaabo kaloo byproducts badan ah caagaga ka mid a waxyaabo badan baa ka soo baxa waxaasoo dhan kulligood baa khasabka laga wada sameeyaa ee sokorta khamro lagama soo sameeyo waxaan kaloo kuu sheegayaa khamrada midda sokorta ay wadaagaan oo khasabkaa keliya lagama sameeyo cinabkaa laga sameeyaa cinab sokor lagama sameeyo laakiin khamri baa laga sameeya waxaa laga sameeyaa zabiibka ka mida waxaa ka mida tufaaxa laga sameeyaa khamri meelo badan oo kalaa laga sameeya waxaa laga sameeyaa bahalka la yidhaahdo qamadiga laga sameeyaa khamri qamadiguna ma xaaraanba gallaydu ma xaaraanba kuwaasoo dhan canabku ma xaaraanba tufaaxu ma xaaraanba waxaadan garanayn baa faraha la gashay wiilow cagaha u ka dhig waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego rijs buu ku celcelinaya rijs wey rijs maxay tahay kelmadda rijs carabi ahaan macnaheedu waa wax xun rajuusa wax xumaaday wey ama shay xun ama ficil qabiixa rijsun marka la yidhahdo oo masdar laga dhigo waa ficil khariban oo xun qofkii ku dhaqmaa wuxuu mar wuxuu noqdaa ficil oo mar wuxuu noqdaa sifo ilaa 8 jeer buu qur-aan ku soo arooray marka koowaad waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali الshayطaani fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun dadka ilaahay rumeeyeyo khamriga iyo maysarka oo ah khamaarka iyo qorituurka markii waxbaasaysiga waxaasoo dhammi waa rijsun iyagoo dhan baa rijsi la yidhaahdaa ee khamriga u gaar maaha aayaddaa aad daliishatay oo ku dhex jiro waxa weye waa wax xun kulligoode ka fogaada fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun ujeeddadu waxa weye khamriga ka taga khamaarka ka taga baasaysiga ka taga iyo tatayurka aslaamta iyo qorituurka waxaasoo dhan ka taga suurat lancaam waxaa kusoo faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanama yascadu fi الsamaa kadalika yajcalu llahu rijsa cala aladiina laa yu'minuun ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay dadka qofkii uu doono inuu hanuuniyana qalbigiisu waasic ka dhigaa oo islaamku ogolaysiiyaa qofkuu rabana ciriiri buu kaga dhigaa sidii qof la yidhi samada xarig ku fuul si uu ugu adag yahay ugu adag ilaahay saasoo kale uu rijsi uga geliyaa qalbiga dadka aan ilaahay rumaysnayn marka waa wax lagu sameeyey qalbigiisa oo uu wax la rumayn la'yahay oo markaas sifa ah shay baa qalbiga laga geliyey rijsi la yidhaahdo xumaan baa qalbiga laga geliyey waxaa kale oo qur-aan ku soo aroor qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aayaddaasna wuxuu ku jiraa isagoo lagu sheegayo hilibka doofaarku waa xaaraan waana rijs qurun weeye ha u dhowaanina xaaraan wey waxyaaba xaaraan oo taxay buu ku jiraa dhiigga masfuuxa baktiga iyo hilibka doofaarka halkaana waxaa lagaga hadlayaa sokor iyo ma aha waxaa laga hadlaya waa doofaarka hilibkiisa waxaad arki doontaa iyadoo dadka laftigooda la sheegayo oo suuratu tawba waxaa ku jira sayaxlifuuna billahi ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun nimanka munaafiqiinta la yidhaahdo markii ay jihaadka ka dhuunteen hadhow markaad soo noqotaan waxay idin dhahayaan intay idiin dhaartaan wallaahi si aad uga tagtaan oo uga sii jeesataan iskaga sii jeesta maxaa yeelay waa rijsi qurun weeye ma ujeeda waa dad hadda wax laga hadlayo waxaad arki doontaa ilaahay subxaana wa tacaala oo leh wamaa kaana linafsin an tu'mina ila biidn illah suuratu yuunus wayajcalu rijsa cala aladiina laa yu'minuun cala aladiina laa yacqiluun
kuwaan wax garanayn oo dulliga ah qalbiga ilaahay wuxuu ka geliyaa wax la yiraahdo rijsi oo xumaan ah marka ma rumeeyaan qofkii ilaahay uusan iimaanka siina oo waafajina ma rumaynayo rijsi markaas halkaas ilaa 8 jeer oo kala duwan marbay waxay tahay ficil ilaahay ficil u leeyahay oo maxay tahay markuu la qaala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab nabi yahuud baa wuxuu leeyahay dadkiisii ku gaaloobay ilaahay xaqiisa waxa idin kaga dhacay rijsi iyo ghadab ara ilaahay iyo ambaar ilaahay baa idin ku dhacday waa ilaahay baa idin ambaareeyo idin lacnaday lacna weeye iyo ghadab baa idin ku dhacay waa ficil ilaahiya maxaa sokor ka galay maxaa khamri ka galay yani wiilkaasi ma garan karo kelmadda xataa macnaheeda ma garan rijsi wey ha haw dhawaane sokorta xaaraan wey buu leeyahay indha adayga iyo geesinimada baaba iiga daran saas usoo indha cad yahay yaa hebelow haye sheeg sokorada carab ka saartid waxaa isleedahay war qofkan waaba mutamakin gacanta waa ku hayaa baashi haddaadan wax garanayn waa u digayaa isaga iyo kuwa la midka ah adeerayaalow dhagdhagta iyo intay iska daysaan diinta ilaahay ka fadhiista diinta ilaahay culimay leedahay iyagaa loogu tagaa faraha ka qaada waana la bartaayo meel baa loo fadhiistaaye wax lagu riyoodo ama kugu soo dega ama tiktok aad la dhex fadhiisato aad wax kale aad ku shaqo tagtaa weeye waxaad dadka ku soo jiidato kale ma weyda inaa ilaahay u soo dhardhigatid mooye ka xishood ummadda oo ilaahay ka xishood oo diinta islaamka ammaan geli oo magan geli intaasaan oranayo billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu